السلام عليكم أصحابتي إذا قالقة مركل كسود هذا ساعتي عند كريس أصحابتي ما توحى سمينتونا إن شكنا عادي هدومع إن شاء الله وحرجينا إنا كفائدان مرككو إنت هدرتم وحايا له هاللين اللي إنت أورنج جاه iyo hal xabo chicken marka liinta ayaa insha Allah miirinayna ko hal xabo oo liinta isticmaaleyna hadhowtina marka sameynayna sooska laba xabo kala liin ayaa u baahanane marka hadartan halka xabo saas u soo miirtay marka liinta sidaas u miirtay marka waxa sameynaa chickenka ayaa jarjara aniga hal xabo ayaa isticmaalay hal xabo ka badan waa isticmaali kartaa marka ko waxyaalaha oo maaragtay subaga micnaha cadiinta ayaa ka jarjaray kadibna si khafiif ah oo yaryariis ayaa u jara doona insha Allah sida u jarjaran kartaa qasama sida inaad u jarjaratid sidaan hadda ani dheer ayaa ka dhigoyaa laakiin adiga inta ka yar xitaa waa ka dhigan kartaa insha Allah marka aniga hal xabo isticmaala halkaas xabo ka badan hada isticmaalaysid insha Allah liintana laba xabo ka dhig soo macnaha biyaha dhooti oo liinta oo kugu filnaado insha Allah digaagii markaa soo jarjartay weelkaas ayaa kusoo shubtay liintii aa soo miirtayna waa kana waa kusoo shubtay liinta markaa kusoo shubtay kadib meesha waxaa yaalo toonta shiidan filfisha oo sidoo kale ayadana shiidan iyo cusbo ayaa taala intaas ayaa maaragtay iskula shubi doonaa insha Allah filfisha qiyaastaada ku xiran tahay toonta shiidan qaandada yarista oo buuxda cusbadana sidoo kale dhadhankaaga ayay ku xiran tahay inta jeceshaa ku shuban kartaa insha Allah kadibna intaan ayaa waxaa sameyn doonaa waa isku qasaa si fiican markaa iskula qaso dabool ayaa saari doonaa kadibna 30 daqiiqo camal ayaa meel dhigana insha Allah 30 daqiiqo ayaa sugi doonaa inta maaragtay dhadhankii waxa la rabaa cusbada iyo kulli maaragtay liinta liimacaantii kulli inay si fiican jirka u gasho chickenka kadib maaragtay next step baa sameyn doonaa insha Allah digaagii markaas 30 daqiiqo meel dhigatid oo waqtiga ku soo dhaw yahay waxa sameynaysaa burka ayaa diyaarsan doonta insha Allah burka aniga hadda waxa isticmaali doonaa burkan iyo waxa isticmaalaa iyo maarta waraango insha Allah marka burka waxa isticmaalaa laba qaado iyo half ay isticmaalay oo qaadada weynta cuntada lagu cuno waraangadana sidoo kale laba qaado insha Allah ilaa 3 qaando ayaa isticmaali kartaa waraangadana waa tan sidaan ay u taalaa af ingiriisna corn starch ayaa lahaa marka laba qaado ama ilaa 3 qaado ayaa isticmaali kartaa waa kan aniga hadda 3 qaado ayaa isticmaalay kadibna waxaa sameyn doonaa waxa ku daraa paprika ayaa ku daraa barbarooniga shiidan insha Allah wax badan ma baahneed wax yaris leh ku darso qaadada yarista afkeeda hore kadibna insha Allah waxa ku darsan doonaa hal xabo ukun ukunta markaas sidaas ugu soo daro waxa ku dari doonaa filfishan sidoo kale qiyaastaada ay ku xiran tahay insha Allah inta marka isku soo daro kadib waa isku qasi doonaa marka biyo badan xitaa ma u baahnid marka qasaysid wax yareys oo biyo ayaa ku qasaysaa kiista sirista biyo ayaa ku shubay waxa la rabaa inuu maaragtay oo adeeg ahaado burkina xooga adeeg ahaado ayaa la rabaa waxa ku soo ridridi rabnaa digaaga chickenki oo noo qasneed ayaa ku soo ridridi rabnaa marka inay ka jilacdo mal rabo burka sida sadeexda xooga yar waliba adeeg yaa biyo yareys ku sii shubay oo qaandada xitaa qaandada yarista oo dhan amal qaandada oo cuntada lagu cuno amal oo dhan ayaa ku soo daray kadibna intaas maaragtay markii sidaas u qaso si fiican burka isku la daro waxa ku soo darsan doonaa insha Allah digaaga
digaaga sidaas ugu soo ridradanaynaa insha Allah. digaaga cabitaanka oo ku dhex jirayna kulli ha kula soo shubin burka hadii kale saaid ayuu kaaga jilci doonaa insha Allah. marka waxaad sameynaysaa digaaga ayaa xabad xabad ugu soo baxsanay sidaas ayaa maaragtay ugu qasanaysaa burka kadibna saliid ayaa dabka soo saaranaysaa saliid ilaa ay kaaga kulaanayso insha Allah. saliid inay kulaataan waxaa ku fahmaysaa xoogaa yar burka ku qasnaya ku rida isla marka kor haday usoo kacdo kuleel waaye. marka insha Allah kadib digaaga ayaa duban doonaa. chicken kan insha Allah ilaa ay kaaga bislaanayso macna ilaa ay kaga guduudanaysa sugaysaa dabkana xoogaa yar maaragtay sayda waxa u dhigin hadii kale ciyo ay guduudanay maadaama bur oo kor ka marsan yahay dhaxdana maaragtay ma ka bislaanayso. marka waxa la rabaa xoogaa yar waqti inaad u sugtid oo dabka dhexdhexaad ka dhigatid medium ka dhigatid oo si tartiib chicken kuugu bislaato insha Allah. وكان هذا كان لو قيب يا كل دوا مركا لو مر يا كل دوا هذا قيب دوا رسوا كنا ما كبتي كده من قيب لو بيا كسوف هنا إن شاء الله كده مركا إن شاء الله صوص كمان أيو هيا معرفتي كسونا قدونا أصحاب كذا قالوا asxaabta qaaliga waa kana digaagina waa wada dubay meel ayaa dhiganaa kadibna waxaa sameynaa next sauce-ka oo maaragtay marka oo la kariyo oo digaaga kor ka mari doona insha Allah. digaaga waxa artida ku cuni kartaa kaligeed xitaa waa cuni kartaa aad iyo aad ayuu macdaha asxaabta qaaliga waxa rajeynaa inaa baroobeysaan insha Allah. marka kana hadda liimaantii liinta orange-ga laba xabo ayaa isticmaali doona labada xabo marka biyaheeda ayaa soo miiranaa. وكان هذا دبك يا صوص waxaa soo saartay digsiga dabka soo saartay leenta ayaa saas ugu soo shubay kadibna insha Allah waxa isticmaali doonaa laba qaado iyo half oo sokor sokorta cadaanta ama sokorta oo maaragtay oo brown waa isticmaali kartaa insha Allah. sokorta haystid isticmaal kadibna soy sauce ay isticmaalina hal qaado oo buuxda insha Allah oo soy sauce. marka aniga midka isticmaalo nooca isticmaalo sidaan ayuu eg yahay nooc walbo aad heli kartid oo soy sauce waa isticmaali kartaa insha Allah. kadibna basbaas gaduud ayaa isticmaalaa hadaartu waa ka dhaafi kartaa qasab maaha inaad isticmaashid hada basbaaska maaragtay kuleelkiisa aad jecleenin waa iska dhaafi kartaa. kadib waxaa isticmaali doonaa sinjibiisha oo shiidan sinjibiisha xitaa hadaa rabin waa ka dhaafi kartaa qasab maaha inaad ku dartid basbaaska iyo sinjibiisha badaarta waa ka dhaafi kartaa. kadibna intaan ayaa xoogaa yar iskula qasaa intay xoogaa yar maaragtay oo sokorta ay ka dhalaalayso markii sokorta iyo waxa dhan xoogaa yar dabka oo soo kululaado oo isku qastid insha Allah waxaa sameyn doonaa waraango ayaa ku dari doonaa. marka waraangadana waatana hadaftaan halkaas qaado ayaa kusoo shubtay laakiin qaadada dhan ma isticmaali dooni wax yariis ayaa u baahan tahay maadaama oo maaragtay oo cabitaan maaragtay liinta ay yar tahay wax badan uma baahnid wax yariis aad isku fiirsanaysaa in ku adkeys bas ayaa la rabaa. marka sidaas u soo adkaatay saasa waraangada wax yariis ayaa ku shubanaysaa. waraangada markaa sidaas ugu shubtid maaragtay hadaftaan sa u jeediinbo kulli intaan qasay in isticmaalin kiistaas ka isticmaalin
isla markiina waan qaatay way soo adkaatay marka cabitaanka sidaas ayuu usoo adkaaday marka dabkana maaragtay kan kaa duwan dabka u gaabsa insha allah marka aad dareentid in maaragtay xoogaa kusoo adkaatay ee sidan camal kuu noqotay dabka dhan waa ku wada duminaysaa insha allah ma ka dejinaysid laakiin dabka u dami kadib maaragtay insha allah xoogaa yar sii sug sidaas iskula qasqasaysaa had dabka lagu daarno marka saan ay noqoto masha allah kadib digaagii oo ku dubnaay ayaa kusoo shubanaysaa markaa kusoo shubatid si fiican aad iskula qasqasaysaa waxaa la rabaa sooska dhan maaragtay inuu oo digaaga maaragtay aad kula qastid insha allah markaa kula qastid oo kulli maaragtay oo sidaas u wada gargaaro masha allah waa kuu diyaar asxaabteyda qaaliga waxaa rajeynaa inaad ka faa'iideen videogan digaagan waxaa rajeynaa inaad sameysaan insha allah oo idiin maaragtay tooso sidaan aan hadartaan u sameeyay camal idiin noqdo insha allah asxaabteyda qaaliga haddaa baroobeysaan insha allah commenti igu soo qor sidoo idiin noqday ma ka hesheen insha allah wixii fikrad ahna sidoo kale commenti igu soo qora like iyo share kan insha allah iga hilmaamina subscribe kan sidoo kale hadda channelka ku cusub tihiin ina subscribe ii saarteen subscribe ka agtiisana gambaleelka saaran ina on dhahteen insha allah asxaabteyda waa kana hadartaan bari saacad waa ku cuni kartaa kaligiis waa cuni kartaa digaaga insha allah marka waxaa rajeynaa inaad ka heshaan videogan asxaabteyda qaaliga waxaa isku arki doonaa videoga xiga waxaa idinkaga tagaa khayr iyo caafimaad insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.